Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Cawka Channel. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim ah oo ku saabsan kombiyuutarka. Kombiyuutarku waa aalad elektaroonik ah oo u habaysan inuu qaabilo macluumaad iyo sameynta qoraallo ama xog muhiim ah, isla markaasna u samaysan inuu ku kala kaydiyo meelo kala gaar ah. Badanaa kombiyuutarku waxa uu xogtaas la wadaagi karaa qalab ama kombiyuutar meel kala yaala, iyadoo loo marayo adeegsiga internetka. Kuwa ugu degdega badan ayaa maanta awood u leh bilyanno xog ah inay kaydiyaan kana shaqeeyaan si aad u yar. Kombiyuutarada ayaa ku shaqeeya barnaamijyo loo yaqaan OS ama Operating System. La-aantiisna kombiyuutarku waa caag ama daasad meel iska yaala. Barnaamijkaas ayaa kuu cadeynaya qaabka aad u shaqeyn lahayd. Kombiyuutarku waxa uu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah: hardware iyo software. Hardware-ka oo ah samayska iyo walxaha uu ka kooban yahay kombiyuutarka, iyo software-ka oo ah barnaamijka uu ku shaqeeyo kombiyuutarku. Noocyada kombiyuutarada waxaa loo kala qaybiyaa kombiyuutarada miiska, kuwa dhabta, kuwa calaasha, iyo kuwa waaweyn ee loo yaqaano supercomputers. Kombiyuutarada miiska oo loo yaqaan desktop computer waa kombiyuutarada ugu badan ee la isticmaalo, waxaana lagu isticmaalaa xafiisyada, dukaanada, isbitaalada iyo guryaha. Kombiyuutarada dhabta ama boorsada. Kombiyuutaradan waxaa loo yaqaanaa laptop computers. Waa kuwa loogu talagalay dadka aan shaqada ku qabanin meelaha joogtada ah oo eegala safarada. Kombiyuutarada calaasha Palm ama PDA waxaa loogu talagalay dadka aan u baahnayn awood weyn oo ay ku qabtaan kombiyuutar, laakiin u baahan in ay jadwalkooda shaqada iyo ballamahooda wax ka bedelaan, iyo in ay rabaan in ay akhristaan waraaqahooda elektarooniga emailska. Kombiyuutarada supercomputers waxay qabtaan howlo qaas ah sida nashqadeynta iyo maamulidda dayax-gacmeedyada iyo wixii la mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات